ceel matoor biyo macaan in loo qodo madaxweynaha amray nal solar in la geliyo madaxweynaha amray laakiin hadda maanta degdega midda noo ah baahidayada koobaad waxa weeye oo degdega ceel biyo macaan in loo qodo walaalayaal waxaan taaka meeshaan u imid baahi jirta aan u imid oo ka jirta degmada Dhabadeed oo wax badan aan ka hadalay ilaa saacada wax qabad aanan helin ama hay'ad samafal aanan ka helin ama dawlad aanan ka helin sida awgeed waxaan ugu kaliftay bal marka inaan iska hadalno oo adduunku noo ogaado dawladdu noo ogaato marka koobaad waxaan ku baaqaynaa deegaanka ummadda degan nabadgelyo ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliyeed inay wax ka qabato galmudugna wax ka qabato Soomaaliya maanta abaar baa haysata dhibaato haysata mid kale kuma dari karno intaas Soomaaliya oo dhan baan ugu baaqaya in kale waxa weeye degmada Dhabadeed waa ogtihiin waqti waxa lagu jira roob la'aan oo abaaraha lagu jira waxaan raadinay ceel biyo macaan inaanu helno ceelkii biyaha macaan lacag $2,000 baan ku bixinay qolo joolsiinaan keenay waa la soo helay waxaan ugu kalifay intaas saddex ceel baa ka qodnayd mid gorof uu noqdo dagaalkii ahliga ahaaba baabiiyay waa dagaaladii ka jiray adduunka waa ka daba tagnay waa la qoday kaasna hadda waa laga cabaa mid waxa qoray qurba joogta qoday labada ceel hadda mid baa xun midka xun labada ceelba biyahoodu dhanaan weeye waxaan ugu kalifay inaan biyo macaan raadino warbiyahan dhanaan markii nafaqa darradu timaado abaartu timaado magaciisa timaado daacuun baa ka kaca weligeed meesha wax ka dhacaan markii wax yimaadaan nabad buu ka imaan jiray shubanku ugu hormari jiray waxaana keeni jiray biyahaas dhanaan baa keeni jiray waxaan codsanaynaa hay'adaha samafalka codsanaynaa dadka in loo gurmado xagga caafimaadka xagga bahalka la biyaha xagga waxa la yiraahdo ii sheeg raashinka iyo cunada xagga ceel biyood biyo macaan oo magaalada aageeda aan ka helay in matoor la qodo intaas aanu hay'adaha samafalka uga codsanaynaa inay wax ka qabtaan baan rabnaa iyo dawladda galmudug madaxweynuhu wuxuu amray oo nabad u amray oo hadda ka hor ahayd ceel matoor biyo macaan in loo qodo madaxweynaha amray nal carrada tuuga joogto solar in la geliyo madaxweynaha amray waxyaalo badan buu amray laakiin hadda maanta degdega midda noo ah baahidayada koobaad waxa weeye oo degdega ceel biyo macaan in loo qodo abaar baa ka dhacday carrada waa la socotaan biyo dhaamiskii waa xayiran yahay xaggee cunadii iyo raashinkii waa xayiran yahay waxaan ugu baaqaynaa ceelka biyaha macaan midka noogu sii daran oo noogu daran oo aan jecelnahay ceel biyo macaan in meesha laga qodo waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha samafalka waxaan ugu baaqaynaa dadkaas qaxootiga ah oo abaartu ku dhacday wixii ay u baahnaayeen hay'adaha samafalka ugu baaqaynaa inay wax ka qabtaan